dhinac kalena waa taargeysanahay honestly in arrintaas aan maqlan anigu aad ugu farxaba laakiin guud ahaan la xiro waa laga fiican yahay maadaama dad badan ay ku xiriireen oo intan TikTok-ga iyo 1xbet-ka iyo Telegram-ka xaqiiqdan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan waqti kasta idin tahay ku soo dhawaada Tani TV waa maalin cusub muuqaal cusub iyo barnaamij cusub oo kale oo aan maanta idinka soo duubayno mid ka mid ah xaafadaha ay Soomaalidu ugu badan tahay magaalada London waxaanu joognaa xaafadda Finsbury Park su'aashan maanta dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan halkan aan weydiinaya waxa weeye sida ka war haysaanba TikTok-gii oo dhawaan ay ku dhawaaqday dawladda Soomaaliya in la xirayo siday u arkaan ku soo dhawaada Tani TV marka hore magacayga Saciid horta waa thank you very much Janiska ICC inaan maaragtay aan kaaga jawaabo arrintaas number 1 TikTok Soomaaliya oo laga joojinayo waa support garanaya su'aasha reasonka aan ku support garanaya waxay tahay dadkeena ama caruurteena young generation way u isticmaalayaan absolutely waa way qaldan waxaan dhuminaynaa haddii aan saan ku sii soconana waddankeena dhuminaynaa because dadka aan waddanka u soo korayay siday u isticmaalayaan ama dhaqanka ay u isticmaalayaan ama educationka ay ka dhacayaan oo maaragtay waxyaabo badan oo maaragtay asaasiyaad ah meesha ka baxay marka waxaan codsan lahaa aniga in lagu support gareeyo dawladda Soomaaliya to be honest in arrintaas aan maqlan anigu aad ugu farxaba laakiin waxa jira dad kale oo iyaguna lacag ka sameeya businessadooda ku xayeysiya kuwaas miyaan la oran karin haddii la xidho waa ku khasaaray absolutely dadka business ku sameeya I feel sorry for them laakiin waxa la adduunka Ilaahay Quraankiisa wuxuu ku leeyahay fitnatu ashaddu min al-qatl macnaha fitnada haddii qatlka ka dheeraato macnaha dadkaas irsaaqad kale ama systemyo kale Ilaahay u sahlo laakiin dhibaatada gaaraysa annaga oo dad caruurteena gaaraysa ama dadkeena gaaraysa ama meehna gaaraysa ayaa ka badan faa'iidada inta yar hadda u fiirino marka labada dhibac marka la isku milada miisaan waa dareemi karaa khasaaraha maarata ku imaan kara dadka Soomaaliyeed oo ka shaqeysanaya at the same time haddaan fiiriyo dhinaca kale caruurta lumaysa oo maanta aan iskuuladii kaga asaasaqay ayaa ka badan marka waxaan dhihi lahaa ayagana meel kale Ilaahay u sahli doona insha Allah caruurtana hala badbaadiyo dawladda sababta aad bad maasantay magacaaga sheego magacayga Maxamed Xuseen Maxamed Xuseen ku soo dhawaada Tani TV waa dhawahay Maxamed waxaad ii sheegtaa Soomaaliya waxa laga joojinayaa TikTok-gii sidaad u aragtaa wallahi horta wax laga xumaado waa tahay dhinac kalena waa taageersanahay dawladda maxaad ku taageersantay dawladda waxaan ku taageersanahay hadda TikTok waxa socda wax la dhahayo qabyaalad iyo waxyaabo badan adiga marso koobi karo marka dhinacii qabyaaladda hadday noqoto waad ku taageersan tahay dawladdu inay xidho oo soo dadku way wanaagsan tahay waa ku taageersanahay because gabdhahani oo Soomaalida badanaan waa isqaabiyaan waa dheelaan waxyaabo badan ay sameeyaan oo inaa u fiicneen marka dhinacii diintana way u fiicantahay in la joojiyo dhinacii kale qabyaaladda la joojiyana way u fiicantahay wallahi marka aad waa taageersantay in la joojiyo waa taageersanahay markaad asxaabta wali waxaan ku suganahay xaafadda Finsbury Park magacaaga ii sheeg magacayga Cabdullaahi maxamed cali Cabdullaahi xaafadana digantay Finsbury Park ma degan xaafadaas waxaan ku imid safriyo gaaba boqoshaar ku timi sidan ka warqabno dawladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday in la joojinayo TikTok-ga hawsha soo kordhay sidaad u aragtaa wallahi horta waxaan u arkaa horta arrintaasi waa arrin aad looga farxo dawladdan waa ku hambalyeynaya in mataqaanaa arrintaas aaladda TikTok iyo Telegram-ka waxa ay noo geysteen dhibaatada noo geysteen iyo dumarkeena Soomaaliyeed iyo sida faashaxan u dhaqmayaan iyo waxyaalaha soo bandhigaan baraha bulshada waa wax aad looga xumaado Ilaahay waxaan ka baryaynaa in dadkaas Ilaahay oo taxaq oo tuso dawladdan waxaan ku boorinaynaa inay mataqaanaa hor u socoto oo wax ku inay la joojiyo ku taageeraynaa waana ku hambalyeynaa dawladda Soomaaliyeed Asad Usmaan Xirsi mas'uul sare ayaanu maanta la joognaa Asad waan ku salaanay mas'uul waa ka qaada Bashir Taani aad u maasantahay Asadow maanta waxaan dadka weydiinay su'aal ah sida ka warqabno waxa la xirayaa ama dawladdu ku dhawaaqday in TikTok aaladda TikTok Soomaaliya laga mamnuuco arrinkaas aad u aragtaa marka hore aad u maasantahay Bashir Taani waan kaaga mahad celinayaa shaqadan maaragtay aad mar walba community-ga u hayso oo runtii ku bees garaysan wacyigelin iyo wax u sheegid haddaan usoo noqday su-aashaydii kaleeto arrintan TikTok-ga iyo 1xbet-ka iyo Telegram-ka xaqiiqda ani Muqdisho aan ku noolahay waqti badan soo joogay haddana ka imid dhibaato aad iyo aad u weyn ayay tahay maaragtay ii sheegay TikTok-ga iyo 1xbet-ka iyo
telegramka aad iyo aad aynu ugu mahadsantahay dowladda Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay ka dhabay doonto go'aanka ay qaadatay waa mahadsantahay waxaa jira dad iyagu ka ganacsada ama ganacsigooda ku xayeysiiya TikTok dadkaas miyaan la oran karin way saameynaysaa xaqiiqda marka laga hadlo wax dheefka iyo dhibaatooyinka marka la isbarbar dhigo sida uu aqliyan iyo diiniyan dadka u baabi'inayo ayaa ka weyn wax dheefkiisa waa maasantahay marka waxaan joognaa maqaaxida ubax baan joognaa ku taala xaafadda Finsbury Park dhinacan waxay ag taagan magaciisa mahad axmed culiso mahadow sidaad u aragtaa in TikTok-ta la joojiyo wallahi waa ku faraxsanahay in la joojiyo waayo fisqi iyo balaayo iyo xaaraan iyo waxba lagu dhaxwadaa marka aniga waa ku taageersanahay dawladda inay joojiso dad baa jira ka ganacsada dadkaas way ka soo horjeedaan sidaad u aragtaa dadka miyaan la saameynayn wallahi ilaahay meel kale ha ka siiyo bariiskooda in TikTok ka raadi lahayn meel kale ilaahay ka siiyo maanta ka badan baad leedahay maanta ka badan exactly marka ilaahay naga qabto عبد الفتاح كسر تاني تي في ما سنت تاني تي دي هذا بتكل علينا ما شاء الله عبد الفتاح دولة الصومالية waxay ku dhawaaqday inay joojinayso aalada TikTok-ga baraha bulshada TikTok-ga arrinkaas sidoo arkaysa أنا كل واحد واركا إيش وسيف الله بدنا اللي هو مركا دنك وأنا صديق هذيك السنة واحد في عام وايد دنك حنا وارجني مكان دولة دميدو كتاجر يا وحيلا حنا أنشح دقنك كون أكثر يكهر سين كنترول جود لقسميه تسوى كتاجر سنة لكن جود هم اللي حروا على في عينها ما دام تضبنا يكحريران أو حيلا بدنا الأعضاء أو دق أو إمرجنسي دك قارس وجود بيان وحيلا فائدة لجهله مركا ما قبل اللي حروا تصلحان لكن حن إن فوكس كلا صار دولة دي حق قبضوا كتاجر سنة لكن مركا وادو واحد لهاي هلا حديو هلا لا صعدو أوريتنا لو سميه أنا قبل إن اللي حدين قبا أوريتنا لو سميه لقى إلى لي وحيلا حن لكن توصلها اللي حرو صح معنا ذلك حرية لقى قال معنا وحوين أكسن وحيلا بدنا نكسن على سوق ليها لقى فرصة ذاك كلا صعدان لكن حن إن دولة دي حديد ذاك وحيلا أقلاق ضي أما الدين تيدق وحدي ما إنك دولة دك علي سوتاس واقع كتاجر سنة العالم حماتي لتشوجا ياسين كامبالا أو بقشة قابل كتشوجا مجال لندن ياسين كسر تاني تي في وكله هاي بشير هذا وما صنتهاي برنامج إذا وعي قلنت هي أدودنا هذا كجماد علننا aad baad mahadsantahay adigoo aad u mashquul ah hadana naga ogolaatay inaanu su'aalahan aanu bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda aanu ku weydiino su'aashan aanu weydiinayno dadku waxa weeye sideed u aragtaa dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay joojinayso aaladda TikTok-ga sideed u aragtaa arrinkan niyahow barnaamijkan TikTok-ga iyo 1xBeat-ka dawladda ku dhawaaqday inay joojiso barnaamij aad loogu baahnaa oo xilligeedii ku soo aaday oo aan dawladdana uga mahad celinayna waaye sababtoo ah waxyaalaha dhibaatada ku ah bulshada oo maaragtay oo laga soo maanguuriyay dadka maaragtay dad islaama oo muslima marka aan ficaynin marka jiritaankeena iyo umad ahaanteena marka dawladda aadan ugu mahad celinaynaa barnaamijkan inay samayso ay xirto waa ku mahadsantahay dawladda ninkan oo garanaysaan idin sheegi maayo maanta waxaan ku suganahay xaafadda Finsbury Park ayaan wali ku suganahay barnaamijkeenii ahaa dadka ku weydiinay sideed u aragtaa in aaladda TikTok-ga laga joojiyo dalka Soomaaliya sideed u aragtaa Xuseen والله إنه تاسوا واحد كعاد سؤال ما بعنا قف كست أو أقل لا ما مسكحد الشقين السنة وأوجي هاي أنا دولة الصومالية ضد الصومالية بوان كتاير سنة هاي وحنا سلاها هاي فائدة دي قصارة دي فائدة دي أير قصارة دي بدن مركا أنا قلت تلي وحنا كتالي لها إن لما ممنوع حسين واحد شرط ضد يجو كجناعسة ganacsi gooda sidaas oo ganacsi haysto ku xayeysiista miyaan dadka saameynay wallahi niyo waa saameeyne oo hadee dadkaas waxa ka badan yaani damage-ka ama problemka kale oo dadka ka soo gaaraya ka badan dad yar inta loo danay lahaa dadka badan waxa ka sii daran dhaqankii jiilkii dadkii dambe macnaha dadkii iimaanaya waxay la korayaanba wax ay u malayaan inay wax sax yihiin laakiin aan sax ahayn mid kale caqabado kale jiro dawladdu lafteeda hadii arintan aan kala qaadno anigu qof ahaan waxaan aaminsanahay TikTok dadka Soomaaliyeed iyo dalka iyo dhaqanka iyo midna inuusan wax faa'iido u lahayn haddana problem kale jiro dawladdii laftirkeedii wixii hadii tiraado waa joojinaynaa ma u haysaa sharciyad tusaale internetka qolada iskale bay u hoos tagayaan qolada internetku markay yiraahdaan internetka hal la xiro oo YouTube-ka baalki muxuu ahaa
tiktok ha laga xiro problem kala imaanayo waxa la leeyahay qoladii jabisa sharcigi ama ayaga laftirkooda haday diidaan kuwa internetku ama macnaha sharci maxaa ka ah yani intaan la joojin sharcigi ma la sameeyay macnaha process sax ma la marsiiyay ma la marsiiyay taas waa caqabad laakiin sida guud aan waxaan la qabaa dadka inta badan aan u malaynayo inay saxan yihiin in la joojiyo aad iyo aad baad mahadsantahay ganacsade weyn Xuseen